munaasabadani ay xilka kula kala wareegayeen gudoomiyihii hore ee degmada Cali Xaydhe ee gobolka Awdal iyo gudoomiyaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay degmada Cali Xaydhe ayaa waxay maanta ka qabsoontay degmada Cali Xaydhe ee gobolka Awdal. munaasabadan oo ahayd mid siyaasad ah loo soo agaasimay ayaa waxa goobjoog ka ah xogayaha fulinta ee gobolka Awdal, maayirka degmada Bake, qaar ka tirsan isduwayaasha alaamaha dawladda ee gobolka Awdal, mas'uuliyiin ka socday degmada Garbadadar, cuqaal, waxgarad, dhalinyaro, haween iyo dadweyne aad u tiro badan. ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay oo daahfurayay munaasabadani cuqaasha iyo waxgaradka degmada Cali Xaydhe, waxayna soo dhaweeyeen gudoomiyaha cusub ee degmada Cali Xaydhe, waxayna sii sabootiyeen gudoomiyihii hore ee degmadaasi, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaan soo dhaweynaynaa gufudan ballaaran ee mataqaanaa ujeedka ay u timid ay ahayd xafladan xilwareejinta labada gudoomiye. waan u mahad celinaynaa. marka hore waxaan salaan iyo ambalyo u dirayaa gudoomiyihii hore degmada Cali Xaydhe ee maanta xilka wareejinaya Cabdilaahi Maxamed Xuseen. xafladan waxaan u dirayaa salaan. gudoomiyuhu muddo yar buu joogay xilka, wax badan waa qabtay. waxyaabaha uu qabtay ka xuseeya waxaa ka mid ah in dadkan degmada ku nool Cali Xaydhe uu gacmaha isku saaray oo ay ka bogsadeen waxyaalo jiray. aad iyo aad baan ugu hambalyeelayaa oo uga tahdinayaa arrintaa. waan sii dhawaynaynaa, waan u ducaynaynaa. intaa markaan dhaafo waxaan soo dhawaynaynaa gudoomiyaha cusub Cabdiraxmaan, oo ah nin reer Cali Xaydhe oo inta wejigoodana ku cusbayn. dadkii dawladnimadan iyo aasaaskii Somaliland halkan ka shaqayn jiray buu ahaa. waa nin waayaraga maamul soo maray, degmooyin siya soo maamulay. waxaan ka rajaynaynaa maanta inuu halka ay Cali Xaydhe taagan tahay ka dhaqaajiyo. kolley inamadan maanta xilka loo kala wareejinayo khayr allaha siiyo. ina kan imika muddada yar xilka hayay maantana walaalkay si sharafana waan ugu wareejin dadweynaha reer Cali Xaydhe way mahadsan yihiin, lana khayr allaha siiyo. ina ka kale maanta reer Cali Xaydhe isaguna ahaa ee sida imika aqalka iga horeeyay uu sheegay ka soo bilaabay shaqo Cali Xaydhe la qabto ta ugu hooseysa degmooyinta laga qabtana ilaa heer gudoomiyana degmooyinkani ka soo gaadhay imika lugayay noo xigto. inta badan ee kalena maanta xagga magaalada wax laga doonanayo inaga jiray ee meel kastaba gacanta inoo gelin doonanaysna waan soo dhaweynaynaa. waxa weeye gudoomiyaha Baytari iyaan soo dhaweynaynaa, salaamayna ka hore walaalkayaana waan soo dhaweynaynaa. waxa weeyaan degmadeenan istaarkeedii waxa lagu dayay markii uu horeysay handar baan ku daynay. handarkii way ku istaarmi weyday. markii dambana dhalinyar baa la ururiyay, jug baan ku daynay. jugtiina way ku istaarmi weyday. maanta waxaan inii sidnaa Baytari 24 tan aan inii sidnaa oo istaaraya saacadaaba. laakiin waxaad ogaataan Baytarigaas haddii uu ka xadhku weecdaan xadhkaha uu jaraya ogsoonaada. sharci baa lagu wada socon doonaa. waa nin aqoon leh, ninkaan la soo xulay. markaasi fiisa la iga sheekeeyo wixii hore uu ahaa waa halkeeda. sababtuu maanta ku yimid aan sheegayaa bari arrinkan diyaar uma ahayn. waxaa la yidhi si degmadii kor u soo kacdo oo ay la jaanqaado degmooyinka Somaliland waa in la helaa aqoontii nin u leh aqoontaasi. in badan baa la bariyay oo la idin bariyay arrintaasi in la soo dhaadhiciyo ninka. ugu dambeyntii wuu naga aqbalay. reer Cali Xaydhe wuu naga aqbalay, naga gudooma. isbedelku waxa weeye waa sunnaha dawladnimada. waxaan leenahay maanta adiga xil baa ka dhacay. xilkii iyo mas'uuliyaddii waxay fuuraysaa Cabdiraxmaan. xilka iyo mas'uuliyaddu sideedana laba mid bay noqotaa, mid saddexaad ma noqoto. inay nidaamiyo qoomamo noqoto oo yawmal qiyaama waxa weeyaan ay nidaamo kugu noqoto, iyo inaad noqoto boqor caadila sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam, oo aad noqoto toddobadii yawmal qiyaama loo hareynayay. maxaa ka mid ah toddobada? imaamul caadil. ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inuu imaam caadil ka dhigo. meel walba la iskaga yimid
waad arkaysaan raacal xaydhna qalbad iyo maaragtay mar walba qalbigooga saafiya mar walba qalbigooga saafiya dawladda Soomaaliland iyo meel kasta way soo dhaweynayaan wax kastana waan u baahannahay degmada maaragtay wax kasta waa la qaybsanaynaa waanu jecelnahay dhankiisa waxaa isaguna halkaasi ka hadlay maayirka degmada Baki Maxamed Axmed Caateye waxaana hadalka uga dambeeyay gudoomiyihii hore ee degmada Cali Xaydha iyo gudoomiyaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay degmada Cali Xaydha ee maanta xilka la wareegay Cabdiraxmaan Xasan Cabdalle waxaana hadaladoodii kamid ahaa anaga waxa sharaf noo ah inaan degmadii naga goday xafladeeda nimaadno oo ka soo qayb galno degmadani waxay naga goday 2017 bishii sideedaad waanu u sheegnay dadka inay degmadani ku aaso sababtuna waxay ahayd degmooyin baa la bixiyey ka baaxad yar kana bableesh badan kana bableesh yar kana baaxad yar baa degmooyin la siiyey waanu u sheegnay dadkaasi inay degmo gaarta halkani ka sii tashada waxaan kale sheegayaa maanta oo soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub oo ah kii saddexaad ee degmada Cali Xaydh waa maayirkii saddexaad marka waxa weeyaan maadaama uu yahay kii saddexaad degmadani waxay leedahay khayraad badan oo dabiici oo degmada lagu sameeyay oo leh macdan wadooyinka badan iyo beero ayay leedahay marka waxa la bulshadu hala shaqeysto maamulka cusub maamulkan waxa ku dardaarana dadka inuu kasbado waxaan ku soo dhaweeyaa ama ku wareejinayaa xilka maamulka dowladda degmada Cali Xaydh gudoomiyaha kulli isla uu ka joogo gudoomiyaha ciyaaraha iyo tana kulli inaad iyaga ugu marayaan degmada xagga ciyaaraha kale degmada inay kulli ay tayadeeda ciyaaraha isagana xasan saciid oo kula dardaarmaya isku duwaa macdan tana kulli shaqada weyn buu halkan kulli isagana mas'uuliyaddeedu saaran tahay oo inuu ka warhayo degmada kulli waqtigood gaaban xilka maayirnimada afartanooda hayay waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha cusub ee Cabdiraxmaan kulli laba kalmood oo odhan lahayo dardaarano labada kalmood mid waxaan odhanayaa maamulka gobolka iyo isku duwayaasha dadweynaha reer Cali Xaydh mid baan odhan lahayo aad baan ugu mahadcelinayaa una hambalyeynaya sidii fiican ay la soo shaqeeyeen mid umaan odhan lahaa dardaarano kolley noqonina waxay hedaanay cid gaara ama laakiin maamulkii degmada maadaama waa maamul aad ka midaysantihiin bulshooyin aniga waxa la yidhiibay waa xilkuna sidiisaba waa eeduna qofku isaga ayaa ama keena inuu eedaasi ku sii socoto ama wax bedel sameeya insha allah waa dembi xilku sidiisaba waa dembi baa aniga la yidhi waxaan rabaa idinka codsanayaa in aad iigu ducaysaan ilaahayna bay fududeeyo ogayaha gobolka waxaan xogaya ku weydiisanayaa inaad codsiga qaado odayaasha waad maqlaysa hadlayey waxay ku hadlayeen waa rug saldhig male guri caalamxoaas xaruneedkooda dowladda hoosaha ma jiro waxaad og tahay laamihii dowladdu inaanay waxba ka jirin ilaahay waxaan ka rajaynayaa maanta waxaynu xilka kula kala wareegaynaa waa iskoolkii carruurta laakiin waxaan rajaynayaa ilaahay hadduu yidhaahdo maalinta anigu xilkaa aan ka tagayo inaan ku wareejiyo xafiiska ay dowladda hoose leedahay ilaahay baan taa ka rajaynayaa reer Cali Xaydhna waxaan ka codsanayaa waxba aniga hamigayga ku jira waxa inaad igala shaqaysataan aniga haddaad ii arkaysaan inaan qabiilahay war qabiil meeyahay anigu maanta waxaan ahay gudoomiye ummaddan loo keenay dir iyo daarood ilaahay intuu halkan dhigay baan maanta mas-uulka ah laakiin halkii arkay qabiil meey alxamdulillah allah igu asturo idinkana waxaan idinka codsanayaa inaad si niyada karaamo leh ila shaqaysaan waxa inaga maqan inagoo sidaa isku ah ayaan qaadoonan karnaa dawladdu waxa inaga maqan cidii noo keeni mayso laakiin haddaan sidaa isku nahay meel kasta waan idin gari karaa aniga oo garbahayga tihiin haddaanad laakiin garbahaygu iga baxaan war waxba qaban maayo farkali fool ma dhaqdo hadalka waan iska soo koobayaa waan isku dambaynaa reer Cali Xaydho inagu shir baan wada galaynaa waan wada fadhiisan doonaa duqay haween dhalinyar
innagaa isku hadhayna ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay xilkana u kala wareejiyey mas-uuliyiintani xogayaha fulinta ee gobolka Awdal Mustafa Axmed Cabdi mas-uulka cusub waan soo dhaweynaynaa waan muddo kara waan soo dhaweynaynaa waan u ducaynaynaa codsiyada uu codsaday insha Allah taala si hoose ayaan insha Allah taala ula fadhiisanaynaa wax badan baan la qabanaynaa insha Allah taala isagana waxa loo baahan yahay degmada in wax badan ka qabto mas'uulkii horena mas'uul wuxuu ahaa xilka saruntii laakiin xilka dawladnimo ayaa meerta asaan ognahay waxa leenahay isagana Ilaahay meel khayr qabta ha geeyo Sikriya Cabdishaaq Faarax Sikriya Saxane telefishinka caalamiga ee Horyaal TV degmada Cali Xaydh ee gobolka Awdal